Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee rooga garoonka diyaarado ee Beledoogle kala dardaarmaysiyo oo xureeyay lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya iyagoona sheegeen in garoonka diyaarado ee Beledoogle uu si shaqeeyo doon hamiin imaalan sida faahfaahinta warkan yeerninka fiiriyaasi Shukriyeedin Huseen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan oo sheekeedan xildhibaano iyo wasiiro oo ku shartirsan lamada min sas oo kala taliyaalka ciidamada ra'iisul wasaaraha dhihi doona laakiin Soomaaliya dhibaatada ka dhacday iyo meeshii la soo maray waa la ogyahay maanta alxamdulillah meel fiican mareynaa astaanta aad ku taagantihiin iyo labaska idin kugu jiro waa labaskii sharafta waa labaskii wadankan karaamadiisii waa labaskii ummadan karaamadeeda ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo wadajirkeedii wixii naga halaabay in la toosiyo haddii maanta intaas soo raga iyo gabdha oo ciidan military ay meeshan taagan yihiin waxaan rajaynaynaa ummadan dhibaatada lagu rafaadiyay oo habsiga kor ku furan ku jirto oo dhamaanteed habsiga ku jir in habsiga ka furtaan diyaar mootiin ummadiin in habsiga ka furtaan ilaahay idin guuleeyo ilaahay waxa idin kaga baryeynaa waxa idin ka hor yimaado idin dhibaatay in idin tusin xabadiinina tii la ridib inay qof cadow ku dhacdo waxay soo ridaan ilaahay biyo ka dhigo gobolada oo halkan noogu yimid inay ogaadaan xaaladda ciidanka ay ku sugan yihiin taasi waxay nagelinaysaa himad weyn waxaa muuqata ka warqab oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga warqabi doono ciidanka waxaa loo ballan qaaday oo madaxda ay ballan qaadeen wixii xuquuq ah oo uu leeyahay inay diyaar ka tahay annaga waxaana la faray oo nala ka rabaa oo waajib nagu ah wixii waajibaada oo nala ka rabo inaan fulino ballankaas ma geli karnaa ballankaas ma geli karnaa yaanaan waxba haddaba been sheegin haddii aan isbaaro dhigan doonno haddii aan ummadda dhibaatayn doonno haddaba aan nidhaahno ballankaas ma geli karno ugu horeyntii waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynihiina oo aad raalli uga ah shaqada aad halkan ka haysaan idiinna imaan doona haddii ilaahay yiraahdo marka labaad waxaan u mahad celinayaa taliyaha iyo abaanduulaha oo waqti kooban igala shaqeeyay aniga iyo madaxweynahaba nagala shaqeeyay inay arrinkanu suurto gasho in ciidan la isku soo abaabulo loo dhamaystiro agabkoodii halkan ay isugu yimaadaan iyagoo diyaar u ah inay dalkooda difaacaan madaxda ciidamada qalabka sida dhammaantooda halkan joogana waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamuladiisa oo iyaguna nagala shaqeeyay inaan kulligeen meel uga soo wada jeesano cadawga aafeeyay ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloon u mahad celinaynaa xildhibaanada iyo senatarada naga soo raacay magaalada Muqdisho iyaguna danaynaya inay fiiriyaan xaaladda aad ku sugan tihiin iyo inay idin tusiyaan inay diyaar u yihiin inay idin garab istaagaan waxayna tusaale ka tahay in xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxweynuhu kulligeenba aan hal meel uga soo wada jeedno sidii cadawga loogu xoreyn lahaa dhammaan waddankeena intaa kadib waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dalkan sidiisaba waxaa xorriyadiisa keenay dhalinyaro iyo ciidan Soomaaliyeed waxaa u dagaalamay oo keenay astaantiisa ciidan Soomaaliyeed waxaa xoreeyay oo sharaftiisa iyo karaamadiisa sugay
dad Soomaaliyeed oo idinka kala ah maantay Soomaaliya waxay haysataa fursad weyn fursaddu ma aha madaxweynaha ma aha ra'iisul wasaaraha ma aha baarlamaanka ma aha dawlad goboleedyada madaxdooda fursadda Soomaaliya ay haysato waa ciidamada Soomaaliyeed golo wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kulansho khamiis laga hay geekiyo kuwa adeeg magaalada Baydhabo ee gobolka Baay way bayoon ku hadaleena arrimo ku saabsan abaaro iyo waliba ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya faafahintu warkan way banin haytay Sahra Suleymaan Mukhtaar golo wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya way bageeka kulansho khamiis laga hay iyo ka qabsadeena xarunta madaxtooyada kaasoo suulan ku hadalay qodobo dhowr ah oo ku mid ah qodobada sida abaaro ku jiraan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo ammaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo beero soo shir gudoomiyay kusimaha madaxweynaha أنا وزير كبيرة يا وراب كمام وكون فرق البيت محمد حسن فقي قال وزير ذي حاضرا كلن شوين مركي وساقب قبو كلن كسور فضيان كل هذا لي وزير كورفافينت حسن عبدي وزونا هبندك يا مشاقي ولا قال وزير ذي كهذا لنا مقرشين وزونا بعد صحافة هذا لو يوي بعد الاسكمت هاينا لبضا كوني تطبيق طبنكا sidii caadada ba inoo ahayd golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isugu yimaadeen shirkoodii khamiislaha ahaa oo uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi isla markaana ah wasiirka wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed Soomaaliya ajandooyinka ama waxyaabaha maanta la isku soo qaaday waxa kamid ah kow in guud ahaan dadka barakacayaasha ah ee abaaruhu soo barakaciyeen ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda sida iskooda ugu laabanayo deegaanadii ay ka soo barakaceen maadaama ay roobab wanaagsan ay ka da'een sidii gurmad loogu fidin lahaa loona kaalmeyn lahaa iyadoo saaka galinkii hore ay xaryahooda ay ku booqdeen guddiga abaaraha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kusimaha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya intuba iyagoo xog waraysi dheer la yeeshay dadka abaaruhu ay soo barakaciyeen oo deegaanada ku sugan waxayna intooda badan shacabkii saaka la booqday ay tilmaameen inay u baahan yihiin in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen dawladuna ay garwaaqsatay wasaaradda dib u dejintu ay bilowday in dadka abaaruhu ay soo barakaciyeen qaybtooda doonaysa in si iskooda ay ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen si wax soo saarkii beeraha dib loogu tacbo inay gacan ballaaran ay ka geysan doonto wasaaradda dib u dejinta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo la kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga deegaanka ka jira intuba in ay dadkaas dib u dejin loo sameyn doono dibna loogu celin doono deegaanadii ay ka soo barakaceen iyadoo agabyada ay u baahan yihiin haday tahay abuurka beeraha iyo haday tahay kharashaadkii inta beeruhu ay ka soo go'ayaan ay ku noolaan lahaayeen dawladdu iyo hay'aduhuba iyagoo isgarabsanay ay u diyaariyeen sidoo kale waxa la isla soo qaaday maadaama ay bilanayso bishii Ramadaan ee wanaagsanayd ilaahay subhanahu wa ta'ala awalkeedana uu ku tilmaamay مغفرة دحدنا وكتلمامي هدي الله كورون يهاي رحمة قيمته قدام بيسنا إلهي وكتلمامي إنه تهي بشي اللي يسود بدافعي إن ولا لها الصوماليات إلهي وحسيي يهاي هذا كالمايا تذكر مساكين تا إنتو بقينا يجعم بلارن كجيستان سيد الله أفر لها تذكر مساكين تا وكسو بركة أي مقالة بيدوا إنه واحد جدا كلن yahay kulan moodi kala ku duubanay kaasoo lanku hadalay amaankii iyo beero Sahra Suleymaan Mukhtaar TV-ga Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo xarunta xanaanada xoolaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dhismoosha geeka la kashiidkii magaalada Baydhabo ee gobolka Baay markala faafahintan way banin hay Cabdullaahi Maxamuud Isaaq Afaani waliba geeka magaalada Baydhabo la kashiidkay xarunka targali xoolo nool taasoo markaasay haqab galan madiidan ka saray dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya walibana haqab galay madiidan ka saray dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka horeeyay kusimaaga madaxweynaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waana wasiirka beero iyo waraabka dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi wasiirka xanaanada xoolaha dawladda Koonfur Galbeed midownuuna Maxamed wasiirka abka dhigistiyo dhaqaalinta
iyo wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo wasaaradda dib u dejinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha degmada kan gobolka Baaliban Koreenti goobta ku hadlay kusimaha madaxweynaha waana wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi oo sheegay faa'iidada geedka xaruntan lishidiki iyo latiisaas oo guud ahaanba waltarki weyn yeelata xanaanada xoolo markaas la hirgeli xarun cusub iyo weeladaha وزارة حولها فدرالكا وزارة حلال حولها معمول كوفر قلبين كمبنيجا هوشا فرينا يو عيل علي اللي هذا قارس كبحنا اسمه كوبي روتي كوبي حول بدن أي كفري سامحوها معمول كان سدح الضبل وأقوم اللينا ما دام إذا يتاي tan qarashka bixinayso dhamaantood oo u mahad celinayaa magaca maamulka koonfur galbeed iyo magaca shacabka ee koonfur galbeed iyo inta ka faa'iideysan doonta ayaan u mahad celinayaa midda kale labaad waa runtii horumar aad u weyn waaye dhulkaani cidii noogu deeqday oo ah odayga ganacsadaha ah cali marbuus mahad gaar ayaan u celinaynaa u deeqay micnaha wasaaradda inay halkaan dhisato waxaan kaloo rabaa inaan kambaniga sida hadda wasiirka noo sharxay waxaa waaye xoolaha meel u daryeeli doono waa meeshaan barkada leh takhaatiir leh daawooyin leh shaybaar leh takhaatiir wax daaweysa leh sidaas lamida qaybtan qayb lamida maanta waxaa laga furayaa iyadana gobolka Shabeellaha Hoose degmada Afgooye runtii waa u mahad celinaynaa wasaaradda xaaladaha xoolaha ee federaalka iyo tan maamulka koonfur galbeed iyo kambaniga dhisaayo iyo hay'adda koobiya marlabaad ugu celinayaa waxaan leeyahay shacabka koonfur galbeed ha ka faa'iideystaano muxuu ahaa dhismahan insha allahu hay'addana waxaan ka codsanaynaa hadda dhismaha gacanta inay bilowda laga rabo inay u dedejiyaan shacabkaani maadaama dhulkan uu yahay dhul xooleed marka la furo meeshaana xoolo badan ay isugu imaan doonaan oo indhaha lagu wada haayo oo marka la daawado la dhihi doono meeshaasi waxbaa ka furan oo kilometers in laga imaado dhici karto waxaan ka codsanaynaa inay sida u dhaqsiya badan leh u dedejiyaan waxaan kala ka codsanaynaa wax tayo leh oo mustaqbalka hay'adda koobi ee lacagta bixinaysa iyo kambaniga iyo wasaaradaba lagu xuso inay micnaha meesha ay ka soo baxaan ayaan aad uga rajaynaynaa waxaan leeyahay magacaas anoo ku hadlayo koonfur galbeed golahiisa wasiirada iyo shacabkiisaba dhagax dhigaan maanta aan dhisnay ilaahay ha ka dhigo mid micnaha lagu liibaano saasoo kale waliba goobta ku hadlay wasiirka xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya waana warbixin ku bi guud ahaanba sidii koox geegiyo ka sameeyeen xarun cusub markaasna ka tirgalay xoolo baahaweyn badan iyo wasaaradda sidoo argaasan meelaka fogay magaalada meelaka talagalay xoolo nool in kalaan daawo shaybaar iyo maaragtay waxyaalo badan oo baahida la xiriira meelaan dhawaaye iyo runtii mayba dhulkun hadda gacanta haya odagii ganacsadaha ahaa oo cali marbuus soo aragtay andoori meelun in aragtay lakadhika sida la sheegay mashruuca mayba maaliyadeed meel sheena doona qalab shaybaar la sheena doona maamulkii iyo qaarwiin oo la keedayo daawada iyo takhaatiirta qoy doonaan xarumaha inta ka dhigay doonaan xoolo iyo xoolo dhaqatada aragyadan ka dhigi doona insha Allah ta'ala kusoo madaxweyne arrintu arrin in badan wasaaradda iyo maaragtay awoodtigood alxamdulillah hadda hirgali guulaysatay dalka oo dhan ayaa meel ka dhisay lix boos oo noocan oo kale ah koonfur galbeed lama boos ka heli
una baydhabo dhisa kuna aftooyin dhisa waaye marka eedeedan qaasaasiyada galmudugna ay ka jeedaan sidii la kala galay tayo leh isuuna dhisa wadoolasha mayba marka jeelaan anoo ma hadlayo guud ahaan dibgalka madaxweyne ku sameeyay wasiirada iyo baxda saxaafadda iyo maaragtay ciidamada qalabka sida iyo siyaasiyiin walbaro badan mahad gaar ah in laga leh odayga cali muguus oo runtii maaragtay gorodii in la handhawaaya howlo meel ka habboon oo biyo leh in may la reebs si mahad gaar ah nagana insha Allah may baa guuriyay saasoo kale waliba goobtu ku hadalay gadoomiyaha degmada Baydhabo إن شاء الله مرجعنا دميلهم هو بنفس إنه يبغى لا يسوع أول بعنا لكداوي دون تقولهم حوجر من يبغى كفاية دونا فايدين إن شاء الله وبارك دونا وأنا إن شاء الله ذكر وزارة دي وذكر يبغى إن شاء الله ما نقول دون إن شاء الله إن شاء الله اليوم يبغى سيبين ميل ما مشان أتكير ذكر لما ترجع يبغى كفاية مقالة بدون يبغى كلام إنها كورت يبغى إن شاء الله إن ذكر ما نقوله أي دمار جيل يبغى أي ذكر ما نقول نكتبي وزارة دي نكشف عمر قدرات أو حرارة هورا نقول كمان هذا برشة كذا ما يصير وزيد نعم هورا كم كذا سوي كذا كمان نقول لكن برامج إن بعد هذا إلهي مكسور تبيجي كل كل saasoo kale waliba goobtu ka hadalay gudoomiyaha gobolka Baaya Cali Nuur Wardheere sidoo gudoomiyaha dawladdu bay sheegay xafladdu may ka saabsantaa xarumoon oo kale daawo oola oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo focus ku kaashadaan oo inta ka dhisaa marka ma ilaahay ma disaan iyo southwest dad daawo muudnay oo daawo diirin muddo wala weyn wala inay horan kan marka idan faraxsan idin oo laga naftiyo la hatu dhibaatooyin qaban si daawo iyo oo la qaban oo hadii hoola la daaweyn jiruud dadkan ku biyaay marka hadii dad jiruud kullu hal biyaas inay oo hoolan naftiyo daawo iyo jiruud qorshe marka may rajiyay in naga tamilum meel oo xarun oo shaqay oo sidoo talgal shaqay si kastaba haato xaruntan cusub oo lanka talagalay xanaanada xoolo taasoo la ka xanaaneeyo xoolo nool ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya geekilishidki san koreyti elishidka kuleed lamada sane ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ay jartay walibaana mashruucan la ka dhisay iskuule hay'adaha ku socda dawladda Itoobiya taasoona koonfur galbeed Soomaaliya iyo ku eediya lama mashruuc oo la ka dhisay xarun magaalada Afgooye geekana magaalada Baydhabo la kashiidkay Cabdullaahi Maxamuud Isxaaq Cabdullaahi Afani telefishinka koonfur galbeed ee Soomaaliya KGS Channel magaalada Baydhabo ku dhawaad 30 wariyeeye geeka tababar lahan kihiri magaalada Baydhabo ee gobolka Baay faafayntu warkan way baninhay Axmed Ibrahim Buule in ku badan 30 wariye waliba geeka tababar dararo hal maalin lanka furay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay tababarkan waliba qaban qaabiday wasaaradda warfaafinta iyo waliba wacyigelinta bulshada koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba saasoo kale ururka wariyaalka koonfur galbeed ee Soomaaliya waliba uu qayb galeen mas'uuliyiin shirkadaysan oo uusan ka horeeyay kusamada madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka warfaafinta iyo waliba wacyigelinta bulshada gudoomiyaha gobolka Baay gudoomiyaha degmada Baydhabo ee doga magaalada iyo waliba saasoo kale xildhibaano ku tirsan dawladda koonfur galbeed aan ka horeeyay furitaanka tababarkan ayaa waliba ku hadlay wasiirka warfaafinta iyo waliba wacyigelinta bulshada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed waliba uu si sharaxaad ku bixiyay tababarkan iyo ujeedka macallimiin anugna inay ku filan yihiin seminaarkii loo aadi lahaa Xamar seminaarkii loo aadi lahaa Kismaayo iyo Boosaaso iyo seminaaradii dibadda loo aadi lahaaba inay dad ku filan ay noo joogaan farxad weyn bay inoo tahay dabcan inay soo wada diyaariyaan wasaaradda hogaaminaysa ururka suxufiyiinta koonfur galbeed Soomaaliyana ay door muhiim ah ay ka qaataan sidii uu seminaarkan u qabsoomi lahaa waxa jiri doona mudane madaxweyne shahaadooyin aan siin doono Ilaahay idinkii dadkii ka faa'iideystay intii uu seminaarkan socday sidoo kalena waxaan bixin doonaa maanta madaxweyne ururka suxufiyiinta koonfur galbeed Soomaaliya oo aan ognahay in muddo 2 sano ka hor aan iraahday hadana khaldaneen la dhisay
sababo jira awgood inta ay iyagu isaga toosayaan annaguna aanan siinin aqoonsigii rasmiga ahaa ee ay wariyaasha koonfur galbeed Soomaaliya ay kula qaybsan lahaayeen wariyaasha Soomaaliyeed guud ahaanba iyadana maanta ilaahay idinkii waa bixin doonaa in ururka suxufiyiinta koonfur galbeed Soomaaliya ay la jaan qaadaan ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo ururada caalamiga ah ee adduunyada ka jira sidii ay xuquuqda reer koonfur galbeed Soomaaliya ay leeyihiin dhanka wariyaasha ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen annagana ka koonfur galbeed ahaan iyo ka wasaaradda ahaanba waxaan ballan qaadaynaa inaan ururkan si dhow ula shaqeyno wada shaqeyn toosana ilaahay idinkii ayna dhaxmari doonto haddii alla idmo mudana madaxweyne soo dhawow seminaarkan shahaadooyin aan bixin doonaa shahaadada ururka suxufiyiinta koonfur galbeed Soomaaliya iyana maantan si official ah u dhiibi doonaa haddii ilaahay idmo gudoomiyaha degmada Baydhabo ee doga magaalada Cabdullaahi Cali Watiin oo siina kumidahay mas'uuliyiinta u qayb galay furitaanka tababarka iyo waliba uu siina sheegay inta muhiim ah anta tababar lan furo wariyaalka koonfur galbeed in meel baan ka faa'iideysto deeg horumarka dhabta oo may baa insha koonfur galbeed lan ka saarafadi way oo hawshay larger TV ma haysan TV la haysan hawshay idaad ma haysan idaad may boo diyaaro waa marka intaas may wasaaradda warfaafin iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo maamulshii may booyaan ka mahadnagaan juhdiga daakhilay bilyan waxyaabo geek la dheeri may boo ma jirto resource-una unu hasaarafadni kulli may boo haysan walaa unu may boo TV ka muuqdo kulli may boo haysan marka insha Allah inuu ka faa'iideysan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gabagabadii tababarka ayaa waliba ku hadalay kusamaga madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ana wasiirka beeraha iyo waliba waraabka Maxamed Xasan Fiqi waliba uu siin dhinay ka dheeraday muhiimada iyo lata anta tababar lan furo wariyaalka isugu yimaado oo aad ka tashataan aayihiina ha noqoto Soomaaliya sida wax loo wadaagi lahaydeen ama ha noqoto aqoontiina sida u dhisi lahaydeen ama ha noqoto midnimadiina sida ku adkeyn lahaydeen marba hadaa isu timaadeen micnaheedu waxay tahay waxaad ku tala gasheen inaad howl culus qabataan sidaa darteed saxaafaddu waa tiirka rasmiga ah ee caalamka uu ku dhisan yahay ma aha Soomaaliya ma aha koonfur galbeed caalamka waxaa tiir u amaanta saxaafadda warka maanta Washington ka dhaca daqiiqad waxaan ugu fiirsanayna waxay tahay waa warbaahinta sidaa darteed cidda nasiibkaas haysata ee shaqadaas profession ka dhiganaysa oo wali haddana Soomaaliya sii joogta waxaan qiyaasi karnaa in qalbigooda iyo hamigooda uu aad u sareeyo ay u baahan yihiin dawlad iyo wasaarad garab istaagta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in saaxadda saxaafadda koonfur galbeed ay soo gashay sida koonfur galbeed marka horeba dawlad in looga dhiso aan diyaar loogu ahayn waxay afgooyinta ka soo xigo dhanba aan loo ogolan in dawlad looga dhiso ayaa haddana loo ogolan inaan saxafiyiin ay leeyihiin ay yeeshtaan marka waxay ilaahay mahadiisa maanta inaan ku faanayno in Soomaaliya goobta isugu tagto in maanta aan ku leenahay gudoomiye ku-xigeenkii saxafiyiinta Soomaaliyeed Sonja waa magac noo soo hoyday waxa ilaahay mahadiisa isla markaas inaan gudoomiyo haddana leenahay islaam inaan saxafiyiinta koonfur galbeed gudeeda maamulka sidaas ayuu ku dhisanayaa gudiyo ayaad kulli samaysan doontaan waa si dhismi doontaan waa si dooran doontaan waxaan rajeyn doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo Ahmed Ibrahim Buule telefishanka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo tababarka saabsan aqoon kororsi lahanka gabagabay geeka magaalada Baydhabo ee gobolka Baay kaas oo maalmoodii la dhaafay isku dareeray magaalada Baydhabo faafaynta warkan way baninhay Cabdullaahi Maxamuud Isaaq Cafaani waliba geeka lahan gabagabay golo baarlamaanka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya seminaar iyo socdi maalmo kaasoona ka baradayeen
xeerarka aqooneed ee xubno gudiyada baarlamaanka isaas oo kale ku qayb qaadashada iyo isaas oo kale waajibaadka gudiga iyo dhowrowka mabaadi'da baarlamaanka isaas oo kale qodobo fara badan oo markaas iyo ka baradayeen seminaarka walibaana geeka seminaarka inka dambeeya lanqa wadaya gudiyada baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya seminaarkii waliba ku saabsanayay shaqadii gudiyada iyo maareewka howlo gudiyada baarlamaanka taasoo markaas lanqa waday gudiyada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya walibana u qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda koonfur galbeed iyo ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka isaas oo kala xoghaynta walibana inta badan seminaarka hay markaasay wada qaadeen gudiyada baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya walibana inka dambeyntii marka seminaarka la handhamayay warbixin siiyay telefishin koonfur galbeed ee Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka gudiga baarlamaanka dowladda koonfur galbeed oo ku hadlay magaca golaha shacabka ee koonfur galbeed marka hore waxaan salaan u soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh marka xiga hay-adda UNDP oo iyadu mar walba nala garab taagan sidii ay kor u qaadi lahayd aqoonteena xildhibaanadeena sharafta leh aqoontooda siday kor ugu qaadi lahayd seminaaro dhowr ahna siiyay kuwa maanta kuwa ka horeeyayna ay noogu soo qabteen deegaankan anagoo joogna mahad ilaaha iskale mahadda kale waxaa iskale UNDP-da waana ka filayna waana ka fili doonaa hadduu ilaah yiraahdo markaa u soo noqdo casharada ama seminaaradii hadda ugu dambeeyey casharada lagu bartay runtii waxay ahayd casharo aad iyo aad inoo raaligeliyey haddii aan nahay xildhibaanada koonfur galbeed sababtoo ah waa casharo aad micnaha fokiska ama diiradda u saarayay qaababka ay u shaqeeyaan guddi hoosaadyada baarlamaanka sidaan la wada socno baarlamaan kasta wuxuu leeyahay guddi hoosaad sidaa darteed casharo aad qiimo u leh wax badanna laga bartay ay ka barteen guddi hoosaadyada baarlamaankeena koonfur galbeed iyo qaabkay u shaqeyn lahaayeen taasna mar labaad waxaan uga mahadinaynaa hay-adda UNDP ee iyadu micnaha mar walba isku dayda in ay kor u qaado aqoonta xildhibaanadeena waxaa kaloo iyaduna mahad gaaraan u soo jeedinaynaa macallimiintii fududeeyey casharada ay noogu soo bandhigay in aan micnaha ku barano habka gudiyada u shaqeeyaan iyo waajibaadyada iyo wax laga doonayo marka sidaa darteed annagoo intaasay inka badan waxaana kaloo ka codsanaynaa hay-adda UNDP in ay seminaarada ama capacity buildingka ay u wado koonfur galbeed inay sii kordhiso si annaguna aan u noqono dad wixii markaasi loo igmaday ka soo dhalaala hawshii ummadda ay u qabanayeen maadaama waxaan ognahay xildhibaanada inay matalaan shacabka koonfur galbeed si hawshooda ay uga soo dhalaalaan waa inay noqdaan dad aqoontooda la hormariyo si kastaba haato seminaarkan yahay ko markaas aqoontii kordhan qaaday guud ahaanba golaha baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Isxaaq Cabdullaahi Cafaani telefishinka koonfur galbeed ee Soomaaliya magaalada guud ahaan warkiisun ku fiirsadaasan TV-ga koonfur galbeed intaninka dhanye warka way basiina dareersiyaa anoo ay Cabduqaadir Barra Macalin way banaa dhinaga farsamada iyo kaamirada oo saacidaayay injineer Maxamed Carab anti warkan warshay unu ku dirana way basiin ku tabaane sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh